qaar kamid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda dawladda in ay qaataan mas'uuliyadooda ku aadan badbaadinta jiritaanka golaha shacabka. Shucayb Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya. iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu dalku wajahayay xiisad siyaasadeed oo soo marta tii ugu darneed tan iyo markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa xiisadahan iyo dhibaatada ka dhalan karaba ka hadlay labadii madaxweyne ee ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee kala ahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. qoraal ay ku soo qoreen barahooda internetka ayay labadan mas'uul uga hadleen dhibaatada ka dhalan karta isqabqabsiga iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta golaha shacabka iyo xukuumadda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qormadiisa ku bilaabay dhawaanahan waxaa soo ifbaxayay kala aragti duwanaansho ka dhex jira hay'adaha dawladda Soomaaliya. kala aragti duwanaanshahaasi oo salka ku haya mooshin laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka ma ahan markii ugu horeysay ee mooshin la horkeeno golahan ha ahaado mid laga keenay gudoomiye ama wasiirka koowaad ee xukuumadda. arrimaha mooshinadii hore laga bartay ama casharada laga qaatay ayaa ah kuwa muhiim ah oo marka kuwan oo kale ay yimaadaan noo ah in aan dib ugu laabano. waxyaabaha laga bartay ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sheegay in ay kala yihiin kow markasta oo dalka la doonayo markasta oo xalka laga doono dastuurka ku meel gaarka ah iyo shuruucda habraacyada kale ee heshiisyada lagu yahay guul ayuu ku soo dhamaadaa waxyaabaha la isku hayo balse markasta oo la hareer maro dastuurka iyo xeerarka kale ee jira waxaa la dhexli jiray nusqaan dawladnimo oo sababi kartay in taladu ay ka baxdo gacmaha Soomaalida ee gacmo shisheeye ay gasho. ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxda ugu sarreysa dalka in ay ilaaliyaan dastuurka dalka isla markaana ay u guntadaan sidii ay u badbaadi lahaayeen golaha shacabka oo uu sheegay inay muhiim u yihiin dawladnimada Soomaaliya.